saaxiibayaal halkan waa Kabtan Bara official muuqaal kale ayaan idin haynaa xogta naga soo gaaraysa magaalada Qardho ee gobolka Karkar ayaa ku waramaya in magaalada Qardho ee gobolkaasi Karkar ay ka dhacday qiso la yaab leh kadib markii fanaaniinta Yurub Maxamed Cabdi Yurub Genyo iyo waliba Maxamed Bakaal Cirro iyagoo xaflad ka qayb galaya uu la dumay stage-ka ay saarnaayeen Yurub Genyo iyo waliba fanaanka kale ee la socday oo ah gudoomiyaha xidigaha geeska ee Maxamed Bakaal Cirro ayaa ka qayb galay xaflad ay dhiganayeen qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed maadaama hadda ay bilaabatay ololaha tartanka la xiriira golaha deegaanka. Maxamed Bakaal Cirro iyo waliba Yurub Genyo ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaaladaasi Qardho kadib markii casuumaad ay ka heleen qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed oo dalbaday Yurub Genyo iyo Maxamed Cirro inay soo gaaraan magaalada Qardho si ay kaga qayb galaan munaasabad ay dhiganayeen qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee ka aasaasan deegaanada maamulka Puntland. Xaflad la soo agaasimay ayaa lagu casuumay kadibna waxaa dhacday in stage-ka ay saarnaayeen uu la dumay taasi oo dadka qaarkii ay ku noqotay la yaab. Haddaba durbaba waxaa loola cararay isbitaalada ku yaala magaalada Qardho midkood oo ah waliba kan ugu weyn si loo ogaado xaaladda caafimaad ee fanaaniinta stage-ka uu la go'ay. Dhakhaatiirta ayaa waxa ay sheegeen in xaaladoodu ay tahay mid aad u fiican, kaliya ay jirto shoog ama naxdin. Dadka qaarkii ayaa weli isweydiinaya sababta keentay in stage-ka uu go'o. Qaarkood waxa ay ku fasireen in stage-ka uu ahaa mid markaasi aad u jilicsan oo waliba fanaaniintii waliba dadka shacabka ee meesha saarnaa aan xamili karin, halka kuwa kalena ay siyaabo kala duwan u fasiranayaan. Xafladii ayaa hal mar waxa isku beddeshay sawaxan qayle iyadoona dadka qaarkii ay ku noqotay la yaab. Marka aynu joogno Soomaaliya waxaa laga yaabaa in qisadan ay tahay mid ugub ah, laakiin marka aynu eegno dalalka caalamka qisadani ma ahan mid ugub ah maadaama inta badan baraha bulshada lagu arko dalal dhowr ah oo qisooyinka noocan oo kale ay ka dhacaan. Sanadkii hore ay ahayd markii Yahuudda ay dhiganayeen xaflad iyagoona ku dhiganayay meel u dhow masjidka barakeysan ee Aqsa uu la dumay stage ay saarnaayeen, taasi oo Ilaahay ugu talagalay inuu ku halaajiyo maadaama beedkii barakeysnaa ay ku sameynayeen waxyaabo markaasi ka baxsan diinta Islaamka. Haddaba Yurub Genyo iyo waliba Maxamed Cirro ayaa hadda xaaladooda caafimaad waxa ay tahay mid aad u fiican, inkastoo axsaabta siyaasadeed ee casuumay fanaaniintaasi ay weli ka hadlin sababta keentay in fanaaniintaasi uu stage-ka la dumo inkastoo ay ahayd mid qadar ahi. Kabtan Bara official had iyo jeer waxa uu u taagan yahay saaxiibayaal inuu idiin soo gudbiyo warbixinada xiisaha badan, isagoo markasta jecel dadkiisa inuu la qaybsado farxad iyo murugo intuba. Adiga hadda ina daawanaya saaxiib, sidee baad u aragtaa dhacdadan ka dhacday magaalada Qardho ee gobolka Karkar? Waa dhacdada ugu hadalhaynta badan toddobaadkan ee laga hadlayo guud ahaan geyga Soomaalidu ay degto. Inkastoo fanka uusan ahayn wax fiican ayaa haddana laga yaabaa in sababta ugu weyn ee stage-ka uu la dumay ay tahay inay ku cibri qaataan isla markaana ay gabi ahaanba fanka isaga baxaan. Haddaba fanaaniin dhowr ayaa fanka isaga baxay oo ka mid yahay Cabdihani Cabdulaahi Xaashi oo ay isla soo shaqeeyeen Yurub Genyo iyo Maxamed Cirro, waxayna ka wada tirsanaayeen xidigaha geeska. Sidoo kale waxaa ka mid ah Maxamed Saciid BK ayaa isna ka mid ahaa oo waliba lagu xasuustaa BK inuu ka mid yahay dadka ugu tunka waaweyn ee ka tirsanaa xidigaha geeska isla markaana fanka isaga baxay. Haddaba waxaa jiray fanaaniin dhowr oo aan ka tirsaneen xidigaha geeska, waxaa ka mid ah Qaaliladan iyo sidoo kale Axmed Biif iyo waliba fanaaniin kale oo ayagaba jeclaystay inay fanka ka fariistaan. Siciid Taariikh ayaa ka mid ah, laakiin laga yaabee Yurub Genyo iyo waliba Maxamed Cirro in hadaayad Ilaahay u soo socoto oo ah in fanka laga fariisiyo haddiiba ay iyaga qudhooduba ay cibro qaadasho leeyihiin maadaama meesha loo socdo ay tahay meel markaasi u baahan camalkeedu in loo shaqaysto. Saaxiibayaal, adiga fikirkaaga waa inoo muhiim, qaybta commentiga inoogu soo qor sidaad u aragto dhacdadan ugubka ee ka dhacday magaalada Qardho ee gobolka Karkar.
inkastoo Xamar TV ay isku dayday inay xiriiro la sameysay fanaaniinta ka agdhow fanaaniintan dhacdadu ku dhacday ayuu ku sugan magaalada Qardho aysan inoo suurtagelin, laakiin waxaan isku dayeynaa inaan xiriirada aan sii badino waxyaabaha ku soo kordhana aan idinla wadaagno, maadaama markastaba aan jecel lahay waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi soo kordhay inaan idinla wadaagno si markaasi aad wax badan uga faa'iidaan wax badanna aad ula socotaan. شو ذا؟ Captain Baro Official idinka ayuuna idinka yimid waxaan rajeynayaa inaad dhaqaajisaan oo subscribe-ka aad u saartaan like-tii share-kana aadan ka ilaawina wixii tiriyo tusaale qaybta comment-ina ku reeba waa la idin aqrin doonaa haddii Allah awood leh uu raali ka noqdo. waana wadoonka youtuberada xaaji duco idin leh muuqaalkan kiisa xiganteena ku kulmi doona anagoo isku duuban waxaynu idinkaga tagnaa sidaas nabadgelyo.